السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا ونكسرنا داوديال مل ولبعد جوكتان كسروا هذا هو الركن نجسو قاريا ودن كيتو بيا حاله ودنبي قد بدأ ينقصوا قاضي دون وركنا وحا كمدا حاله ودنبي دجالة كسعودة وقوي كيتو بيا جارهان قبل كحمارض يدجالة لواتني أفر ساعات كلا صودا في أكد عي هالكاسي sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu qalinka ku duugay in heshiis ay gaaraan labadan dhinac ay ku dagaalamaya wadanka Itoobiya sidoo kalena waxa Abiy Ahmed la faray in heshiis ay ka gaaraan dagaalada ay halkaas ka socdo ay u dhaxeeya TPLF iyo ciidamada militariga Itoobiya qodobadaas iyo kuwa kale ayaynu halkani ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkeena ayaynu ku maqli doontaa faahfaahinka warkaasi waxaan idinka codsanaynaa inaad channelka subscribe inoo saartaan like inoo saartaan asxaabtaadana la sii wadaagtaan haddii aynu ku bilaawno dagaalada ka soconaya waqooyiga Itoobiya iyo xaaladihii u dambeeyay waxaa la soo sheegayaa magaalada Dhisay aan iraahday in aageeda dagaal aad u xanuun badan uu ka dhacay oo la soo sheegay in dadkii ugu tirada badnaa ay haatanba ku dhamaadeen sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in aaga Gondar iyo sidoo kale magaalada Dhisay uu yahay dagaalada inta badan meelaha ay aadka uga socdaan waxa la soo sheegayaa in labada dhinacba ay ku taamayaan guulal balse TPLF ayaa waxa la sheegayaa in ay ku dhawaaqday in kumanaan askari oo maxaabiis ay halkaas ku qabsatay sidoo kalena ay la wareegtay hub aad u fara badan oo ay wateen ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa huwanta halkaas ku wada dagaalamay dabcan dagaaladii u dambeeyay ee 24 saacadoodkii ee ka dhacay waxa la soo sheegayaa in deegaano hor leh TPLF qabsatay balse labada dhinac oo hadlay waxa ay sheegayaan in labada dhinac bay sheeganayaan aan iraahday guulo waaweyn ciidamada militariga Itoobiya waxa ay soo sheegeen in qaybaha u badan magaalada Dhisay ay iyagu haatanba deegaanadeeda haystaan halka dhanka kalena TPLF ay iyaguna sheeganayso in gabi ahaanba deegaanada inta badan ay iyagu wada haystaan sidoo kalena ay la wareegeen qaybo istiraatiiji ah oo magaalooyinka dhexdeeda ay magaalada Dhisay ku yaala dabcan waxa ay u muuqataa labada dhinac in ay guulo sheeganayaan balse xaqiiqooyinka dhabta ah halkaasi wax ka soo saaro waa la waayay oo xoogina soo gaaray waxa ay iyagu soo sheegteen labada dhinac ay halkaasi ku dagaalamaya waxaad ogeedeen in madaxweynaha Tigrayga uu ku dhawaaqay in ay soo dhiibaan ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa huwanta ee laga soo kala qaaday kililada sidoo kalena waxa uu sheegay in ay isku dhiibaan ciidamada TPLF waxa la soo sheegayaa in qaybo kamid ah ciidamadii maxaabiista ay haatanba is dhiibeen markii looga adkaaday dagaal aad u fara badan oo dhaxmaray labada dhinac waxayna u muuqataa in qaybaha u badan ee haatanba ee TPLF ay iyagu haystaan magaalada Dhisay iyo aaga Gondar waxaana halkaasi ka muuqata maadaama inta badan ay TPLF sheeganayso in ay maxaabiis ka qabsadeen aan iraahday ciidamada militariga Itoobiya in ay yihiin kuwa mar waliba ku gacan sareeya dagaalada halkaasi ka soconaya waqooyiga Axmaaradu dabcan wararkaasi waxa halkaasi aynu ka soo xiganayna in TPLF qaybo kamid ah askarta ee xoog inagu soo gaaray sheegayaan in iyagu ay ku gacan sareeyay aan iraahday in iyagu ay qaybo kamid ah maxaabiista ay isdhiibeen sidoo kalena qaybaha kale ay iyagu haatanba ka cararayaan goobihi ay ku dagaalamayeen wararkaasi dabcan waxay ka soo kordhay saaxiibayaal halkaadi ayaynu kala wadaagi doonaa fadlan inala sii joogo channelka subscribe saaro si aad ula socoto warar dheeraad ah oo waxay ka soo kordhay wadanka Itoobiya halkan idin kula wadaagi doono haddii aynu u laabano dhankaas iyo Mareykanka madaxweynaha John Biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay heshiis taasoo uu ku saxiixay in Abiy Ahmed uu gabi ahaanba soo afjiro warar dagaaladani iyagu u dhaxeeya TPLF iyo ciidamada militariga Itoobiya waxayna ku baaqeen in dambe ay cunaqabatayna saari dooneen aan iraahday gobolka Tigray waxayna ku baaqeen ama uu ku baaqay madaxweynaha John Biden in gabi ahaanba dagaaladaasi la soo afjiro miiska wada hadalka la yimaado halkaasina la isugu yimaado in laga wada fadhiisto hal sidii looga gaari lahaa dagaalada halkaasi ka soconaya waqooyiga Itoobiya dhanka kale aan iraahday gobolka Canfarta iyo sidoo kale gobolka galbeedka gobolka City ama guud ahaan dagaalada Itoobiya ka soconay dabcan waxa ay halkaasi
ka muuqato in ay Mareykanku xukun adag ay ku soo rideen xukuumadda Abiy Ahmed taasoo oo isagu mas'uul looga dhigay in miiska wada hadalka ay yimaadaan labada dhinac ama inta dhinacba ay ka wada dagaalamayaan wadanka Itoobiya. waxayna ku xirtay dowladda Mareykanka in wada hadalkaasi marka la isugu yimaanayo bilaa shuruud la wada yimaado oo halkaasi uu ka dhaco heshiis. dabcan waxay yiraahdeen haddii la isku imaanayo ama wada hadalkaasi uu furmayo dabcan labada dhinac waxay ku baaqeen in aysan ku xirin wax shuruud waa inay yimaadaan ayuu yiraahday John Biden wax bilaa shuruud oo halkaasina laga gaaro heshiis dhaxal waara. waxayna u muuqataa in Joe Biden uu ku goodinayo in haddii Itoobiyada ay haatanba kala daadsan ama dagaaladu ay ka wada socdaan ay sii socdo in xilka laga tuuri doono Abiy Ahmed. waxayna sheegeen in uu sabab u ahaa Abiy Ahmed dagaalada haatan ka socdo waqooyiga Itoobiya iyo sidoo kale guud ahaan wadanka Itoobiya. waxayna u muuqataa in ay Mareykanku cunaqabateyn aad u culus ay ku bilaabeen xukuumadda Abiy Ahmed sidoo kalena Abiy Ahmedna ay ugu baaqeen in gabi ahaan dagaaladani uu soo afjiro oo haddii uu soo afjiri waayeen ay tahay mid laga qaadi doono xilka uu haatanba isagu uu ku fadhiyo. waxayna u muuqataa taasi mid walwal gelinaysa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed maadaama uu garab weyn uu ka baxay horeyna uu raadinayay in ay soo garab istaagaan Mareykanka balse Mareykanku markuu warkani ka soo baxay waxa uu jab weyn ku noqday Abiy Ahmed iyo xulufadiisii oo horey dagaalo culus kula jiray TPLF. dabcan Abiy ilaa haatanba wax jawaab kama soo bixin balse waxa la sugayaa in fariimihii ama ay soo gudbiyeen dowladda Mareykanka in ay si dhab ah ay uga maradhaliyaan Abiy Ahmed una bilaabo in ay wada hadal isugu yimaadaan magaalada Addis Ababa. sidoo kale TPLF ayaa iyaduna dhankeeda waxay horey ku baaqday in ay diyaar u yihiin in ay wada hadal la fadhiistaan Abiy Ahmed balse Abiy ayaa mar waliba waxa uu jeclaa in ay sii socdaan dagaalada lagula jiro TPLF. waxayna u muuqataa haatan in Abiy Ahmed uu qasaarayo maadaama dagaaladii uu kula jiray Abiy loogu baaqay in ay wada hadal uu la yimaado sidoo kalena uu soo afjaro dagaalada. Abiy Ahmed waxa ay u tahay taasi jab weyn maadaama uu rabay in gabi ahaanba TPLF la ciribtiro iyo xoogaasi sidoo kalena uu gabi ahaanba la wareego gobolka Tigreega. arrimahaasi saaxiibayaal wixii ka soo kordho halkan ayaad kala soconi doontaan balse waxaynu idiin sheegaynaa in weli heshiisyadaasi la isugu yimaanin labada dhinacda ay iyaguna ka hadleen arrinka ay soo jeediyeen ama dowladda Mareykanku ay ku dhawaaqday qalinkan ay ku dugtay. waxay ka soo kordhana halkan ayaad kala soconi doontaan. waa tahay saaxiibayaal intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa war wixii dal iyo dibad bay naga soo gaaray gaar ahaan waqooyiga Itoobiya sidoo kale guud ahaan wadanka Itoobiya. intaan warka war la miidaan ku kulmi doono waxaan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.